joognaa qoyska Allah u naxariistay walaalkeen Axmed Dawlo oo bishii September ee sanadkii 2018 ee lagu gubay magaalada Muqdisho. Aruriyo ciroleba waciida ashadini weeye waciida. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتي وعنا ونكسنا خير تقاليق ميرستون قد علي سكت شو تلك النجدة وصوت channel كنا على ورعو بلاديات كل عصوتة كسر دو لايك شير كومنت سبسكرايب تبع تينا لو وداك سياد مروربا تياد نولا صعطه تقولكم مع صدق يسدوا كلا قدر كتغنى في رسنا يسوا سدوا كلا حكا جمع العلنا وقت قاليق عاد نورتي سدوا كلا حكولي رمضان كريم حتى عيد مبارك ده هالصعطة وشو تلاقي على بحماية وهي هاي ما تلكم حيقولوا وداك معناها أريكو ده الشمضان وفنانك خضر كيو يا أرين عجيبة أو سمي أريك أصلا سويدين ساب بلغة يا بام حيي هاي بس أرين كأو كجدوين فنانين تكلمنا مع محي وإحنا نقدنا وليبا فنانك يجوه الرجال أرين النوع أنا مدقن كنوع أنا سمايا وهي هاي إلهي خير كدجة أرين كنوع أنا مدقن كنوع أنا أو سمي ومحي كل قف كستا وحى وسمايا على بشيو أما وح وناكسن أما وحى وسمي وح وناكسن هذا وحى وناكسن أو سمي أو هذا نكسيد ونادي فنانين تكلموا محي ترى مفنك يوم بعد waxa weeye xaga caawinta ama sama falnimada macnaha sama fal ayuu sameeyay oo walaalkii ama walaashii ama qoys Soomaaliyeed oo dhibaataysan oo walibana mas'uulkoodii ka baxay walibana agoon ah oo macnaha odagii ka baxay oo waliba odayga si xaq daran loo dilay odagii lagu gubi jiray ama ninkii lagu gubi jiray Allah u naxariistay Muqdisho si fiican baad xasuustaan qoyskii reerkaasi uu ka baxay iyo ubadkii uu ninka dhintay Allah u naxariistay ka tagay ayuu booqday oo uu ka farxiyay ayagoon haysanin dhariigeed waxa uu gaarsiiyay lacag gaaraysa 500 meelahaasaan markii muuqaalka aan ka dhaxarkayay bal markaa lacagta uu gudoonsiyay yahabku uu gudoonsiyay iyo dareenka meeshaas ayaan jeclaan lahaa macnaha inaan idiyo tuso oo idila yara wadaago waxaan waliba jeclaan lahaa inaan wada eegno mise inaad keligii soo eegtaan bal waxaan diidaynayaa inaad keligii soo eegtaan khadar kayow iyo habka uu xubixinayo iyo cid la wehelinaysa ee kala qayb qaadatay ku wehelinaysa macnaha wax bixintaas bal hadda aynu wada daawanay waa kana ila eega lacag $500 aan walaashayda Siciida Aweyso oo maamada guriga ah aan ku wareejinay caruurta agoonta hooyadood ah marka waxaan idin leeyahay wax badan ayaa iska bedelay dareenka qoyskan oo ah agoon filashada farxadooda maalinta ciidu aysan ahayn mid wanaagsan daqiiqado ka hor xilligan waxaan la joognaa qoyska Allah u naxariistay walaalkeen Axmed Dawlo oo bishii September ee sanadkii 2018 ee lagu gubay magaalada Muqdisho gaar ahaan xaafadda Tawfiiq ee degmada Yaaqshid maanta halkan waxa yimid fanaanka Qadar Ibrahim Kayow oo qoyskan iyo caruurta agoonta ah kala qayb qaadanaya farxadda isla markaana soo gaarsiiyay deeq lacageed oo ugu talagalay isaga iyo gabar Soomaaliyeed in ay caruurtan agoontaahi ay ku ciidaan si markaasi ay u helaan farxadda caruurta kale ee asaagooda ah ay helayaan hooyo Siciida Aweys oo halgan adag ugu jirta korinta 8 caruur ah oo ay u dhashay marxuum Axmed Dawlo kana fikirsaneed farxadda caruurteeda agoonta ah ee ciida ayaa ka gudoontay fanaanka Khadar Kayow lacag dhan $500 Mareykanka oo isaga iyo gabar walaashiisa ay ugu talagaleen in caruurta agoonta ah ay ku dareemaan farxadda caruurta asaagooda ee maalinta ciida وهجاج واحد جعلها إن هذه الأركتين أو صفي عن أدوجبوجتين كلي ومد وكم مدني هاي حسيت وكم مدني هاي أمان معناها ويريهم فنانين نوع ويريهم ما بقولنا يبع ولما أرج فنان سكول هؤلاء إن ودتك باهيسن أما دتك وسلية هاي وبيبين أو دبعتها هايستا أو عاومة وبهين إن ودتك أنتو وبندقة دتك اللوجو سوديبو وليبنا دتك waxay u soo dhiibeenna u soo gaarsiyo ma sha Allah waa arinku dayasho mudan macnaha kulli qof kastaaba taageerayaal buu leeyahay fanis ayuu leeyahay qof kastaaba dadka taageersan iyo dadka faniska u ah hadii uu dadkiisa u soo bandhigayo waliba dadkii taageerayaasha iyo faniskaaga ay ku aaminsanaan wax ku soo igmadaan oo wax ku soo dhiibaan oo adiguna aad si qurux badan dadkii aad u siiso macnaha ajir baad ka helaysaa balse haddana waxa la mid tahay qofka lacagta bixiyo waxa laga yaabaa inuu laa cid wax siiyo ama cid wax ku sadaqadaysto oo uu laa because waxa dhici karta inaanu dalkiiba joogin uu dalka dibadiisa joogo
badanaa dadka dabadiisa dadka joogay laba mid un bay noqdaan ama waxay kaga dhacdaa baadhi iyo daroogo oo nolosha ka dhacaan dadka qurbaha jooga ama badanaa waxay kaga dhacdaa wanaaga oo dad badan oo qurbaha jooga baynu aragnay oo kaga dhacday meel wanaagsan sida inay dadka caawiyaan inay masaakiinta wax soo siiyaan inay mar walba dadkooda dalkooda ay ka yimaadeen ama dalkii baahiya ka keento ama qaxoontinimo ka keento ama cadaalad darro ka keento wixii doonaaba dalkiisa ka keenay qof kasta dalkiisa dib inuu qaar kamid dalkooda dib u soo jaleecaan qurba joogu oo ay marxaladiisa iyo dadka baahaysan ay jecel yihiin inay wax siiyaan dadka ilaahay wax siiyay ma sha Allah halka qaarna lacagtii ilaahay u siiyay naftoodina ku duleeyaan daroogad xashiish macnaha khamri waxyaabo noocaas ay naftooda ku duleeyeen naftoodina aanay ugu roonaanin walaaladiina aanay ugu roonaanin ehelkiisina aan ugu roonaanin dadkii danyartaana aan ugu roonaanin ilaahay kuwa inagama dhigo kuwa intuu ka dhigana Allah ka soo hadeeyo inta wanaaga ay kaga dhacday sida wanaagsan u dhaqmana Allah wanaaga ha ugu wado kuwii lagu daydana Allah ka dhigo waayahay khadarkeeyo ku dayasho ayuu mudan yahay amaan ayuu mudan yahay macnaha hadii khadarkeeyo la oran jiray waaw codkaagu macaan waaw agshakaagu fiican waaw fanaan baa tahay waaw hore ugu sii soco maanta waxaan ku leenahay wada wanaagsan baad qaaday dad islaama oo qoysa oo maatiya ayaad ka farxisay oo duunida farxadooda adigu sabab u noqotay waxaan ku leenahay waaw hore ugu soco qoysaska iyo qoysas kale badan ba waanu ka rajaynaynaa inaad soo bandhigto inaad caawiso in haddaan xitaa adigu caawin karin dadka caawin karaya aad u soo bandhigto alla khayrkeeda ha ku siiyo macnaha qofku maaha inuu hal meel u taagnaado inuu wajiyo badan uu isku rogrogo oo uu dadkiisa uga faa'iideeyo wali wajiyada badan uu isku rogrogayana ay noqdaan wajiyo qurux badan aad iyo aad bay qurux badan tahay aniga laftigayga waxaan isku dayay insha Allah macnaha toogu haboon ee la sameyn kara wax weeye in qofka hadii la caawinayo halkiisa lagu caawiyo badana qofka halkiisa lagu caawiyo ayaa qurux badan waayo qofna qof ma kafaalo qaadi karo marxaladda maanta in ku jirno qof kafaalo qaadi kara ma jiro runta ma keenno ka hadalno laakiinse maanta qof waliba qofka kale maalin ama nololeedkiisa maalin kamida ama qayb kamida uu kafaalo qaadi kara marka bal waxaan isku daynaa insha Allah ta'ala hadii Ilaahay raado ina baraniga laftigaygu amar fadhiga ka rakaco on soo bandhigo runtii dad runtii sadaqadu ay ku baxayso si ay u caawiyaan walaaladooda kale runtii waxaysta waxa jira dad badan oo ila soo hadlay oo ila soo xiriiray oo aniga shakhsiyaanigu ii caawilo waxaan jeclaysan lahayn maadaama dalkii aanan joogin oo dalka dabadiisii joogno inaad walaalo noo soo ila bandhigto ama aad noo soo ogaato ama aad noo soo baadho dad maxay helay sadaqadu ay ku baxayso oo runtii aad u liita si anaguna wala wixii aanu hayno aan u siino maadaama nafteedii ka feynay tii ehelkayga ka feynay inaan tii islaamnimo iyo soomaalinimo iyo wada dhalashana inaan intaan ka feyn karayno aanu ka feyna ayaan isku daynaa aad iyo aad bad gumaasatiina asxaabta qaaliga ila soo xiriiday habla iyo wiilba way leeyihiin qaar kamid way igu dhiirigeliyeen waxay raadeen hawshaas samee annagana ku baalaynayna oo macnaha caawinta dadka wax caawinaya marka soo bandhigto annaga kow ka noqonayna ay qaar kamid igu yiraahdeen waa maasati walaalsaad mar walba khayrka iyo jeceshiin mar walbana aad ii bushkaraysaan aad mar walbana khayrka aad igu riixdaan way ku maasati macnaha taas walaal lagu yiri khadarkayuna waxaan leenahay anaguna xaqasan kugu bushkaraynayna macnaha xaqaas ayaan ku badinaynaa xaqasan ku leenahay ku soco hadii aad jeceshahay labadaba isku wad laakiin wadadan aad ku dhacday waa wada aad u khayr badan oo wada aad u amaan badan waa wada runtii xusid weyn mudan marka waxaan ku oran lahaa qadarkeeyo wadada aad ku dhacday hore ugu sii soco waayahay asxaabta qaaliga aad iyo aad baan ugu maasatihiin qadarka daqiiqadaadna daawanaysaan iyo sida waqtigiina qaaliga aad noogu hurteen macnaha waxaan oran lahaa channelka subscribe like share comment intaba nala wadaag sidoo kale waxaan isku dayi doonaa inaan asxaab badan oo 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 aan ku soo koobi karin inaan shuud awdo sameeyo aan idin soo bandhigo macnaha muuqaalka ku xiga waa maasantiin waa inoo kala dab isma qaldan bixisay muuqaalka ku xiga oo ayna ku kulanayo muuqaalkan soo share garaysaan bye bye aruriyo ciroleba waciide ciida shadini weeye waciide ciida aruriyo ciroleba waciide ciida shadini weeye